kulanti wacan oo wanaagsan waa mar kale iyo barnaamijkeenii barashada afka Netherlandska waxaan caawa ku soo qaadan doonaa ereyga an waxaa muhiim ah inaad ogaato ereyada macnahooga iyo isticmaalkooga si ay barashada afku kugu fududaato caawana waxaanu qaadaa dhigi doonaa ereyga an inta badan waa erey dhextaal ah waxaa loo adeegsadaa goob marka aad tilmaamayso iyo sida ay wax yihiin ama marka aad meel korkeyga tilmaamayso ama qof korkiisa marka aad doonayso in aad wax ka sheegto aan the andere kant van de straat marka waxaad tilmaamaysaa wadada dhankeyga kale aan the andere kant van de straat aan de hemel dhanka cirka aan de Amstel webiga Amstel korkiisa ama dushiisa magaalo waxaa jirta imika dalka Netherland la yiraahdo Alphen aan de Rijn waa magaalada Alphen waxay saaran tahay webiga Rijn waa webi caan ah oo dalka Netherland ku yaala Amstel iyo Rijnba waa webiyo caan ah marna aan waxay tilmaamaysaa ficil ama action wuxuu qof qabanayo iyo sida ay wax yihiin tusaale hij heeft geld geleend aan haar lacag ayuu iyada deyn u siiyey ama lacag ayuu amaahiyey hij heeft geld geleend aan haar rustig aan haddaad maqasho ama rustig aan doen isdeji tartiibtaada weeye we hebben geen haast oo kale ayaad doonaysaa inaad dadkii dareensiiso wax degdegi ma jiraan haast waa degdeg we hebben geen haast rustig aan isdeji ayaad leedahay je hebt mooie kleren aan markan qof ayaad dharkiisa tilmaamaysaa je hebt mooie kleren aan dhar qurux badan ayaad wadataa ama dhar qurux badan ayaad gashan tahay je hebt mooie kleren aan je hebt mooie kleren aan hij is aan het schrijven waxbuu qorayaa hij is een brief aan het schrijven waa waxbuu qof qorayaa buug ama warqad ubad yaryar oo kale waxaad weydiin kartaa zijn jullie aan het spelen miyaad ciyaaraysaan zijn jullie aan het spelen miyaad ciyaaraysaan qof keliya ama ilmo keliya hadduu yahay wat ben je aan het doen maxaad samaynaysaa baad leedahay qof wax qaldan samaynaya ama wax xum sameeyey waxaad leedahay wat ben je aan het doen maxaad samaynaysaa ama maxay waxaad samaysay hij is aan hartstilstand overleden sabab baad markan tilmaamaysaa qof baa dhintay wadnuhu istaagay waad sheegaysaa hij is aan het hartstilstand overleden wadnaha ayaa istaagay qofka waxbaad leedahay aniga arrintaa waxba igama gelin ama faa'iide iima leh waxaad markaa odhanaysaa daar heb ik niets aan taas aniga waxba igama gelin ama dani iguma jirto daar heb ik niets aan markan qof xanuunsanaya ama il daran ayaad sheegaysaa ereygii aan iyo weedhina sidaa tan ay noqonaysaa hij is er slecht aan toe hij is er slecht aan toe slecht aan toe waxa weeye markaa waa aad xanuun aad u daran ama xaalad xun buu ku jiraa hij is er slecht aan toe ama zij is er slecht aan toe haddaad tidhaa ik ben aan het vakantie toe ik ben aan het vakantie toe waxaan u baahnaa ama waxa igu wanaagsanaa vakantie ama holiday ayaa igu wanaagsanayd fasax baa igu wanaagsanaa ik ben aan het vakantie toe ik ben aan het vakantie toe bal markana u fiirso zou je alsjeblieft de televisie aanzetten zou je alsjeblieft de televisie aanzetten fadlan tv-ga inoo daar ama zou je alsjeblieft de verwarming aanzetten fadlan heaterka inoo daar zou je markaad tidhaahdo waxa weeyaan waa fadlan de verwarming aanzetten inaad tidhaahdo waxaa ka wanaagsan zou je alsjeblieft de verwarming aanzetten qofkii markaa ixtiraam iyo edaab ayaad u muujisay fadlan inoo daar heaterka haddii lagu weydiiyo inay wax dhaceen waxaad ku jawaabi kartaa ereygii aan adigoo adeegsanaya tusaale ahaan haddii lagu idhahdo wat is er maxaa dhacay waxaad leedahay er is niets aan the hand waxba ma dhicin er is niets aan the hand waxba ma jiraan wax dhibaato i ma jiraan ama waxba may dhicin
Wat is er aan de hand? Er is niets aan de hand. Wat moet ik daarmee aan? Maxaan yeelaa? Weeye tanna. Ik heb een brief ontvangen van de belasting. Warqad ayaan belastingka ka helay. Belastingdienstka. Qof ayaad weydiinaysaa maxaan ka yeelaa? Wat moet ik daarmee aan? Maxaan ka yeelaa? Wat moet ik daarmee aan? Ereyga aan sidaas ayaa meelo fara badan iyo weedho kala duwan loogu adeegsadaa. Isku day markaa weedhahan marka ay ku soo gaadhaan ama aad maqasho inaad dhagahaaga ka raariciso oo aad isku daydo inta aad doonto aad ku soo celceliso si aad markaa dhagahaaga u barto Nederlandka. Waxa habboon markaa wixii aad isticmaashay ku celceliso unbay maskaxdaadu xafidaa. Haddii aad isticmaali weydo wixii maskaxdaada xafidi mayso, isku day markaa in aad bal ereyada ku soo celceliso iyo weedhaha marka aad maqasho. waxaanu casharkan ku soo gabagabayn doonaa caawa 3 mahmaahood oo Nederland ah. Afka markaa si aad u qurxiso af walood baranaysaaba wuxuu u baahan yahay in aad ka barato dhanka grammarka, naxwaha iyo dhanka sarbeebaha iyo mahmaahiyada. Waxaa inta badan loo isticmaalaa nolol maalmeedka, maalin walba lagu hadlayo ereyada qaar mahmaah iyo sarbeeb markaad isticmaasho ama marka la isticmaalayo aad ayaad markaa uga foojignaanaysaa, diyaarna waad sii ahaanaysaa. ereyada inta badan ama weedhaha inta badan dhagahaaga ku soo dhacaana waxay noqon doonaan waxa taqaanay qofka bini'aadmigu waxa uu inta badan isticmaalo waa uu la soo baxaa hadhow. haddii aad isticmaali weydo oo weligaa isticmaali weydana weligaa waxaasi way ku daynayaan, weligaana way kaa maqnaanayaan. bal aan u gudbo mahmaahda u horeysa markaa. Van A tot Z haddaad maqasho, van A tot Z waa bilow ilaa dhammaad. Vertel eens baad leedahay qof. Vertel eens, ii sheeg. Vertel me alles van A tot Z ayaad qof ku leedahay. Vertel me alles van A tot Z. waa tusaale. waa ii sheeg adigoo ka bilaabay ilaa Z halka waa van het begin tot het einde halka wax ku dhamaadaan. sheekadu siday ku bilaabantay iyo siday wax ku dhamaadeen ii sheeg. waa mahmaah labaad. Wie A zegt, moet ook B zeggen. oo macnaheedu tahay wixii aad bilowdo waa inaad dhamaysaa. Hij is gauw aangebrand weeye mahmaahda saddexaadna. Hij is gauw aangebrand. haddaad maqasho waa qofkaasi ama ninkaas uu cadho dhow yahay. Hij is gauw aangebrand. marka gauw waa dhawaanshihii, waa wax dhow. Hij is gauw aangebrand marka aad ayuu markiiba u gubtaa, waanu cadho dhow yahay. Hij is gauw boos. Gauw waa snel oo kale. snel waa taqaanaa ereyga snel degdega. Hij is snel boos. halkii lagu odhan lahaa ayaa sarbeeb ama si kale lagugu sheegaya waxa lagu leeyahay hij is gauw aangebrand. waa qof cadho dhow markaa. waxaa intaa inoogu eg caawa barnaamijkii halmaalay barashada afka Nederlandska. tan iyo kulantideenna dambe waxaan idinkaga tegaynaa dhammaantiin nabadgelyo.